ciidamada amniga ugaasiyada malaaqyada maaragtay haweenka bahda saxaafada fanaaniinta dhammaantiina qofkii ani aan ka tagay xumaan uguma tagin dhammaantiin waa salaamantihiin waxaan idinku salaama salaanta qaaliga ah oo maaragtay salaanta ahlu jannada ayaan idinku salaama salaantaas oo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaantaas kadib waxaan rabaa laba eray inaan ku soo koobo hadalkayga labadaas qodobna waxay yihiin waxaan rabaa ra'iisul wasaaraha inaan u sheego shacabka koonfur galbeed sida maaragtay uu u sheegay ugaaskayna ama maaragtay malaaqayna malaaqdeerow sidaas uu u sheegay shacabka koonfur galbeed inay yihiin shacab maaragtay aad maaragtay u dulqaad badan u sabar badan inay yihiin ayaan rabaa inaan u sheego ra'iisul wasaaraha dhibaatadoodan inaan ka hadla ayaan rabaa ra'iisul wasaare marka ugu horeysa magaalada baydhabo ayaan kugu soo dhawaynaynaa marka labaadna waxaan rabaa inaan kuu sheego maaragtay dadkan reer koonfur galbeed waa dad nabadda jecel waa dad ahlu khayr ah dad ahlu qur'aan ah oo weligooda qur'aankii cilmiga loo soo doonin jiray saa taariikhdaad aad la socotid adigana waxaa la ii sheegay ra'iisul wasaare akhbaartaada saan ku helay in badan gobolkan baydhabo aad ka shaqaysay marka in badan ayaad ka og tahay dadkan waxay ahaayeen dad cilmiga loo soo doonin jiray dad beeralay ah dad waxaa weeyaan maaragtay xoolo dhaqato ah dad waxaa weeyaan dulmi aanan ogolayn dad waxaa weeyaan dal kale aysan ku dumaynin sidaas darteedii maadaama adiga aad tahay prime ministerkii ugu horeeyey baydhabo soo booqday maaragtay u yimaaday oo dowladdan farmaajo ugu horeeyey adiga aad tahay waxaan kaa rabnaa marka maaragtay dadkan inaan maaragtay oo adiga wanaag aad u samaysid oo maaragtay aad u samaysid ixsaan qof kastaba taariikhda ayaa xusaysa waxaa maanta aniga waxaan ku hadlaa luqadda maayga baydhabo ayaan ku dhashay luqadda maayga ayaan ku hadlaa waxaan maxaa ku hadlay waxaan rabaa ra'iisul wasaaraha inuusan dhihin waxbaa iga fakaday si hadalkayga aad u fahantinaan rabaa ra'iisul wasaaraha inuusan dhihin waxbaa iga fakaday hadalkaas ma fahmin si uusan u dhihin ayaa waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo dadkan dhibaatadooda aad u fara badan tahay ra'iisul wasaare badan ayaa soo maray maaragtay wax badan ayaa laga ballanqaaday ballanqaadyadoodina maaragtay wax badan kama fulin ra'iisul wasaare marka maanta inta waa soo istaagi doontaa meeshaan taaganahay wax badan ayaad ballanqaadi doontaa haddaad naqan doontid ninbaa hadda kahor waxaa la yidhi wuu maseeray xaaskiis ayuu u maseeray markuu maseeray ninkii ul buu soo goostay ul weynuu soo goostay geed hoosta ayuu istaagay geedka waxaa fuula baadiyada markii la jooga digaag iyo maaragtay diiqi geedaha korkooday fuulaan suu u taagnaa wuu maseersan yahay wuxuu raadinayaa qofkii guriga ka soo bixi lahaa suu u taagnaa waagaa ku bari geedkii waxaa ka soo degay diiq weyn ayaa ka soo degay markaasaa diiqi markii dhulka jib uu ku soo dhahay uluu la qaaday qiiq markuu dhahay diiqi wuxuu yidhi aabbahaa nin oo kale u soo degana diiq oo kale u yeedha uu yidhi nin oo kale ayaad u soo deganaysaa diiq oo kale u yeedhay soomaa uu yidhi marka ra'iisul wasaare meeshaan waa imaan doontaa ra'iisul wasaarihii hore ama ra'iisul wasaarayaashii hore oo kale haddaad maqan doontid adaa caddayn doon insha allah marka intaasna maaragtay aad baad u mahadsantihiin kaftan bay iga tahay marka insha allah ra'iisul wasaare in badan ayaan ku celcelinaynaa oo maaragtay waxaan ku leeyahay yucطيka min طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب anugu samaynin insha allah waa ku celcelinaynaa carab macaan iyo af macaan intaad nasiisid berina diyaaradaad markaa ku dhacdid idaal aadan noo soo fiirinin yaysan dhicin ra'iisul wasaare saas ayaan kaa xusinaynaa maaragtay salaan waad iga gaarsiinaysaa madaxweynaha dowladda federaalka maaragtay maxamed cabdullaahi farmaajo adigina salaan ayaad iga gaarsiinaysaa reer baydhabo waxaa leedahay ama reer koonfur galbeed shacabka koonfur galbeed ballanqaadyo badan ayaad ka qaaday ballanqaadkii waa lagaa sugooya jidkii in la furaa lagaa sugooya marka adigana waa ku gudbinaynaa arrintaas insha allah jidkan dad badan noloshooda ayaa ku xiran diyaarad ayaa lagu socdaa intaan maaragtay oo magaalada baydhabo dadka badigooda ay imaanayaan diyaarad ayay ku yimaadaan ra'iisul wasaare marka taas intaas ayaan kusoo gabagabaynaa waa ku celinaa insha allah aad baad u mahadsan tahay waxaan kusoo gabagabaynaa oo aan kale aan leeyahay adiga markaa bacdid
ra'iisul wasaare marka baxdii dadana ay dhici doonto dardaarankiisa ee labaad waay maamahadii labaad waay aniga aan kugu dari doono maamahadan ayadana way soo socotaa dadka naftirkooda ogo in laga qosol si way u baahan yihiin inkastoo qosol aysan iga ahayn dhab iga tahay marka waxaan rabaa ra'iisul wasaare ninba hadda ka hor waxaa la yidhi asigina xaaskiis ayaa xanuunsatay jinni iyo waxbaa ka kor hadlaya marka shiikh buu u geeyey shiikhoo qur-aan ii saaruy qur-aankiisu uu saaray jinkii hadlay wuxuu yidhi niyow aniga ha ii dilin waa ka baxa naagtan waa ka baxa u yidhi laakiin shardigan kaga baxa haye maxaa waa shardiga naagtan ka baxa ninkan galaa u yidhi ninki wuxuu leeyahay sheekh haka yeelin shiikho haka yeelin uu leeyahay marka maaragtay haddii markaad baxdi adigna haddii doonto jinni wada ku jira dadkii shacabkii koonfur galbeed taas ha samaynin aan ku leeyahay insha allah oo aad dardaaran iga tahay insha allah waxaa kaleedoo marka aan leeyahay dhinaca waxqabadkaaga haddaa usoo laabto aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waa idinku ducaynaynaa adiga oo xukuumaddaadii waa idin ducaynaynaa maxaa yeelay imaamu axmed ibnu xambal wuxuu yidhaahdaa low kaanat lii dacwatun mustajaaba la dacawtu cala sultaan haddii aniga duco oo mustajaabo ii sugnaan lahayd waxaan u ducayn lahaa qofka oo amiirka ayaan u ducayn lahaa wiil aniga maanta hadday duco ii sugnaan lahayd oo aan ogaan lahaa ilahay inuu iga ajiibaayo waa idin ducayn lahaa markaasna ilaahay raxmadiis lagama quursanaa waa idin ducaynaynaa waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo maaragtay guul idinku waariyo xaqa allah idin tuso maaragtay cadaaladda kuwii waafaqay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkooda meel kasta gaareen allah idinka dhigo kuwii soomaali midayn allah idinka dhigo marka khayre waxaan ku leeyahay maanta waxaan soo booqanay jaamacaddaadii adi lagugu magac daray ayaan soo booqnay wanaagii adi aad qabatay ay ka mid tahay saanaa markas lagu xusaa berina jidkan haddii la furo ama maaragtay koonfur galbeed wax ku soo biiriso saas ayaa lagugu ducaynaa ilaahay agtiisna waa lagugu ammaanaa malaa'igta ku jeclaanaysa addoommada ku jeclaanaysa maaragtay dadka ahlu samaa ahlul ardi ayaa ku jeclaanaya marka sidaas ayaan ku dardaarmaa in wanaagaada aan ka aragno koonfur galbeed ayaan u baahannahay waa fahamteen inta kalena madaxweyneyna idin sharxi doona wuxuu yidhi sheekh Ilyaas hadduu halkan joogo horta Soomaaliya inay rajo leedahay waxaan ku gartay sheekh Ilyaas baa u soo guuray Baydhabo waxay ka turjumaysaa rajada dalka uu leeyahay iftiinka soo socda in qof walba qurbaha joogay uu arkay iftiin oo dalkiisa u soo socdo